dhalinyaro ah oo gedigood 25 sano ka yar ama 25 ugu weyn yahay mid jira warbixinta booliiska ama tirakoobka la sameeyay Soomaalida waa ilaa 24 boqolkiiba geeridii dhacday sanadka la soo dhaafay muddada London Soomaalida waxay ka yihiin 2 boqolkiiba waad qiimeyn kartaan sukaanka ama populationka Soomaalida ee London hadday 2 boqolkiiba ka yar yihiin geeridii dhacdayna ay 24 boqolkiiba ay ka yihiin meesha guuldarro ballaaran ayaa taala guuldarradaas uma taala keliya jaaliyadda waa guuldarro systemkii iyo nidaamkii iyo safeguardingkii iyo badbaadintii dalka ee ubadka iyo dhalinyarada la badbaadin lahaa oo guuldarraysatay dhinaca kaleetana jaaliyaddeennii waxay qabtaa nugayl ayan jaaliyadaha kala qabin maadaama tirada intaas la eg ay baylaha u noqdeen gowracaas midi iyo xabad bay isugu jiraan marka hadda waxa isla jooga ee isla hadlaya ee iswacyi gelinaya ee wada xisaabtamaya isu maaragtay wax isu sheegaya waa inagii dawladii haddana lama joogto markaan dawladda la joogno qaabaan ula xisaabtamay qaab aynu ula xisaabtami karnaa laakiin inaga markaan isla joogno waxaana laga rabaa warka jaaliyad ahaan waxa meesha ka dhacay lama dhihi karo over representation lama dhihi karo dadkii geeriyooday dadkii ugu badnaa ayaynu nahay keliya waa lama soo koobi karo haddaan 2 boqolkiiba ka nahay maaha in 4 boqolkiiba aan geerida ka qaadanin maaha inaan 6 boqolkiiba ka qaadanin maaha inaan 10 boqolkiiba ka qaadanin meeshaas waxaa yaallo macno darray muujinaysa waa meel lagu hoogay macnihi dadka qaarkood waxaa suurtagal inay si fudud u yiraahdaan okay Soomaalida iyo midiyaha iyo gowraca iyo waa caadi dadkan cid yac ka tiraahda maba qabaanba laakiin waalidka laga geeriyooday dadka xanuunka soo gaaray qofka asoon ka warqabina ilmihiisii ay ka tageen in baabkeen loo soo garaacay liiroon ka xunahay waxaan ku sidnaa hadal xanuun badan waa may misaydkan Dar es Salaam tira dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa janaaso loogu tukaday oo midiyaha lagu laayay marka xanuunkaas aad iyo aad ayuu u ballaaran yahay waddankan keliya maaha dhibaatooyinka dhalinyarada dhimanaysa ama le'anaysa waa dhibaatooyin casriga hadda la socota magaalooyinka waaweyn ee adduunyada London New York maxalliga Chicago aad loogu leedaa laakiin dadka inta badan falal dambiyeedyada gaangiga iyo isgowraca inta badan ku dhinta waxaa la yiraahdaa waa dabaqadaha itaalka daran ee dhibaataysan ee nugaylka u hayo dambiye adduunku waa la wada galaa dambiye waxaa jira loo tiiriyo dadka markaas ama dalkii ku cusub ama daruufaysan ama dhibaataysan ama goobo maxaa la yiraahdaa la dejiyay halaq galeen ah marka dhibaatooyinkaas way badan yihiin waxaa markana looga baahan yahay oo aan xoogga saari doono inaan ka hadalno bal ka jaaliyad ahaan intaanan u gelin qaybihii maaragtay kaleeta maaragtay maxay dhibaatooyinkan say u dhacaan qaabkee looga hortagi karaa waxaan sii horumarsanayaa bal ka jaaliyad ahaan sanadkii la soo dhaafay haddaan 24 qof macnihii 24 boqolkiiba aan geeridii ahayn oo 12 dhalinyaro Soomaali London kaliya ay ku geeriyoodeen magaalooyin kale Leicester iyo Birmingham iyo macnihii tirooyinka haddii lagu daro xaalad kale sii noqonaysa waxaana looga baahan yahay inaan isweydiino dhibka halkuu ka yimid oo keliya maaha ilmo midi lagu dhuftay ama la gowracay keliya maaha ilmo darooga iibinaya keliya maaha ma u fiirin karnaa dhibaatadaas si holistic ah ma u fiirin karnaa halkay dhibku ka bilowday halkee masiibadu ka jirtaa meeshay ka soo bilaabanaysaa oo ay tahay in laga mooso mushkilada okay waxyaabaha aniga ii muuqanaya oo marka koobaad waxa weeye xaalad taariikhaysanaynu marayna xaaladda taariikhaysan maxay tahay dad soo qaxay oo dalkii ku cusub oo number badan oo 400,000 dalkii ku jooga oo duruufaha dhaqaale ku yimaadeen dadkii kale ka duwan oo dawladdii boqolkiiba boqol ku tiirsan oo u baahan oo meeshii guri ahaan la dejiyay iyo deegaan ahaan la dejiyay aanan diidi karin haddana halaqii iyo bahalladii iyo dhibaatooyinkii dalka ka jiray aanan inta badan fahansanayn ubadkiina uu yahay jaaliyadii ugu horreysay ee dalkan ku noolaanaysa
iyagii oo aanan waalidkood aysan kaga dardaar warin karin xaaladda cusub sababta xaalad cusubaa lagu soo furtay ummadihii marka jiil ka jiil joogay qaniinkii waa isaga dardaar wariyeen laakiin waalid soo qaxay oo dalkii soo dumay oo nooc walba oo waalid u yimid dhibaatooyinka ay ubadka ku dhacayaan marar badan waxaa muuqanayso ilmaha xabsiga ku jiran ay noo sheegeen kuwa aan mar walba la kulanana ay noo sheegeen waxay tahay inta badan waalidkii uma diyaarsana duruufihii dhibaatooyinkii waalidkii inta badan uma diyaarsano marka mid waxay tahay cusaybkaynu ku cusubnahay dalka marka nalala barbar dhigo madowga kale iyo muslimiinta kale iyo dadka kale la yidhahda black asian minority ethnic oo 13% ay ku yihiin dalka hadda dhibaatadaas waxaa nala qaba muslimiinta sababtaa muslimiinta waddankan saan hore u sheegay 3% ka yihiin xabsigana waxay ugu jiraan 12% muslimiinta waxay ka yihiin 5% xabsigana waxay ku jiraan 15% madowgana dalkan waxay ka yihiin 3% xabsiga dadka ku jirana waa 12% waa afarlaab Soomaali oo muslimiin ah oo madow ah labadaba way ka qaaday marka sababtoo ah duruufahay ku timid way ka duwan yihiin duruufaha ay madowga kale iyo muslimiinta kale ku yimaadeen habqanka iyo qaxa sidan ballaaran aan annaga u nimid cid ku timid way kooban tahay Siiriyaanka nala wadaaga hadda marka annagoo duruufahaas xeerinayna adeega ilaa hadda jaaliyadda ay samaysatay ma dadka waaweyn baa loo sameeyey mise ubadkan iyo challengeska iyo taxadiyaadka iyo dhibaatada haysataa loo sameeyey aniga qiimeyntayda 9 sano jaaliyadda la shaqaynayay adeega waaweyn ee jaaliyadda ay samaysatay waalidka iyo dadka qaangaarka ah loo sameeyey inta badan adeeg la falgeli kara waaqaca oo u qalabaysan dhibaatada iyo taxadiyaadka iyo mashaakilka jira u qalabaysan inay ka yureeyaan nooma diyaarsan markaad fiiriso jaaliyadaha kale 3 generation dad deganaa oo isdhaxal siiyey dhibaatooyinkii jiray oo taariikhdoodii wax ka qoray ayaa jooga ilmaha marka kala irdhow kuma dhacayo hadday meel waxbarasho tagaan dad luqadii ku hadlay dhaqankii yaqaanay jaamacada ka soo baxay shaqaysta noloshii fahmaya ayaa u jooga annaga inta badan adeega waxaa bixiya jiilkii waaweynaaya soo qaxay ama dugsi quraan ha dhigeen ama masaajid ha joogeen ama adeegyada kale ha sameeyeen haddaynu dadaalaynaa markana lala barbar dhigo muddadii ugu horreysay numberka ugu badan dalkan u yimid 95 ilaa hadda ila isbarbar dhigo Soomaalida tallaabooyin waaweyn ay sameeyeen isbedela ayaa dhacay dhanka waxbarashada tuitionka adeega isbedela ayaa dhaco meeshii hore wali lama joogo laakiin wali ma aanan gaarin in adeega jaaliyadda ay bixiso ay bixiyaan generation inta ku dhashay ku hana qaaday fahansan dhibaatadii aanan ka ilmaha aysan ka qaloonaynin way isfahmi karaan sida ummadaha kale wali maysan noo bilaaban hadda ayay tahay bilbilow oo hadday soo bilaabanaysa muddadii hadda ugu dambeysay 2 bilood ugu dambeysay training waxaan u sameynay dhalinyaro ilaa 70 ku dhow oo aan 4 jeer qolo walba aan la kulmaynay oo u dhaxeeya 16 jir ilaa 22 jir waxyaabahan ka wada sheekaysanayna waxay ahayd idinka ayaa ah raaci ugu horreeya soo baxayo mushkiladana heerkaanay la eg tahay maxaa idin diyaarsan يعني heerkan dhibaatada la eg maxaa idin diyaarsan oo haddaad idinkii soo qalin jibisaan jaaliyadda u haysan sababta waxyaabo waxaa jiro jaaliyadaha kale ay sameeyaan waxaa la yiraahdaa initiation waxa weeye u diyaarin iyo u gardaadin jiilka nolosha loo diyaarinayo loo gardaadinayo waalidkii soo qaxay ee halkan joogay ilmahan uma diyaarin kara sababtoo ah waa kala experience waa kala waayo aragnimo waa kala xanuun waa kala psychology laakiin dhalinyaradii against all odds iyagoo macnihii kacaakuf iyo qalad iyo sax inay hagaageen soo guulaystay ilmaha kale initiation way u samayn karaan marka waxaan ka hadlaynay innaga iyagoo aan kaalmaysanayna dhalinyaro kaloo dalkan ku barbaarto jaamacadaha ka baxay waxaan ka hadlaynay bal sidee arrintan loo xalliyaa marka waxaan ku soo noqonayaa arrinta ah jaaliyadeenna dhibaatooyinka jira adeegya innagii aan samaysanay oo arrintaas wax ka galo hadday jiraan aad bay u kooban yihiin tusaale ahaan tuition centerada way yar yihiin Soomaali iskale dad kale iskale waa midkaan aad lacagta ugu bixin marka dhibaatada oo ilmaha ay gaanga galayaan oo aan ka hadli doono insha Allah taala waxay ku galaan waxay tahay intaysan iyagu galin oo aysan da'dii gaanga aysan ku galin iyo dhibaatooyin kale aysan ku galin waxa soo fashilmo oo soo baabao waxa weeye waxyaabo la yiraahdo protective factors
waxay ka soo bilaabanaysaa primary schoolka ilmaha markay dareemaan in waalidka iyo kaalmaday u baahnaayeen ay waqti hore waayaan waxay dareemayaan inay iska korayaan oo aanan waxba loo samaynaynin marka waxaad arkaysaa marka protective factorskaas waxa ugu muhiimsan waa guriga marar badan waan ku soo celceliyey guriga 60% in ka badan ayuu leeyahay ilmaha dhisidooda wacyigelintooda iyo toosintooda in ilma ay baylaha noqdaan ama caruur inay baylaha noqdaan laba arrin loo tiiriya labada arrin oo loo tiirinaya waxay tahay wax la yiraahdo push factor wax guriga ka eriyay iyo wax la yiraahdo pull factor wax dibadda ka soo jiidanay waxyaabo ay gurigoodii ka waayeen oo guriga ka eriyay iyo waxa jiro waxyaabo dibadda uga gacan haatinaya oo soo jiidanay marka haddii marka aan fiirino waxyaabaha ilmahaas marka ugu horeysa soo jiidanaya inay gaangi ku biiraan waxa ka mid ah inay waayaan wax macno uga sameeya noloshooda mararka qaar inaysan fahmi karin guriga ay ku soo barbaareen iyagii iyo waalidkii iyo jaaliyadda inaysan isfahmi karin markaana ay dareemaan dadka bannaanka jooga inay fahmi karaan inay dareemaan waxay taa ka bilaabanaysaa haddii ilmaha ay waxbarashada ku fashilmaan oo ay kaalmo ka waayaan levelka primary schoolka ay kaalmo ka waayaan oo iskoolkii wax uga heeliyay ay waayaan waxyaabaha dhacaya waxay ka mid tahay in ay dibadda u hanqaltaagaan laanna gurigii ma aha guri fahmaya guri ka kaalmaynaya waxbarashadiina han weyn iyo macno weyn uma samaynayso waxay ku soo noqonaysaa marka adeegii jaaliyadda oo ahayd ma qabnaa inta iskuul iilin hadda tirakoobka la sameeyey aniga xaafadda iilinan ka shaqeeya ilaa 5,700 oo Soomaali ilmo ayaa iskuullada aada ilmaha waxay isweydiinayaan iskuulladaas aad tagtaan adeeg ma ka jiraa waxaan la soconnaa permanent exclusionka ilmaha iskuullada laga eriya innagaa ugu badan hal iskuul oon la shaqaynay wuxuu raacdeeyey sanadkan 7 qof hal ilmaha ka mid ah 12 sano jiray isagoo 12 sano jiro ayaa middi qolo inay istaajiyeen ayay middi iyagoo hudkoodii wato ayay tuseen markaas yiraahdaan qofaan ku maleynaynay kale next time is ilaalo wuu baqay guriguu tagay mid saaxiibkiisu la hadlay wuxuu yidhi 12 sano jira weer waan ka xumahay maxaan sameeyaa middi baa la ii qaatay markaas ay war kushiinkiina soo middi ma taalaha hooyana ha u sheegin aabana ha u sheegin middidaada mar walba boorsada ha kugu jirto middi weyn oo hooyada ku jarjaranayso iska soo qaatay boorsada ku ritay maalin baa soo boorsada la iska fatashay waxa la arkay middi weyn oo dhaxta iskuulka uu qaracmay midida laga soo saaray 12 sano jira maskaxdiisu ma kala geyn qola cabsi galisay isla waalidkii kulama soo noqon waalid aad u jecel u leeyahay oo talo wanaagsan siin lahaa cid kale kulama uusan soo noqon community kale kulama uusan soo noqon midida marka la arkay iskuulku xiri mas'uuliyad waxay naga saaran tahay 500 ee dhigata ilmahan waa inaan iskuulka ka raacdayno waxbarashada waa protective factor number 1 hadday dabeecad ahaan ilmaha loogaga raacdayo iyo ama haddii la qalqal geliyo sida ilmaha 12 sano jiro oo asoo cabsanaya xaqiiqatan inuu cabsado ay tahay laana 3 la gowracu yaqaan ilmaha waxay haleeyeen male xaaladii ay ku barbaarayeen lama fahmin qolada ilmaha la shaqeyso nin waxa jira professor oo eray develop garay eray waxa la yiraahdaa concept ama mafhuum la yiraahdo contextual safeguarding waxa la yiraahdaa ilmaha ma badbaadin kartid haddaadan duruufaha ku xeeran iyo waxa cabsi gelinaya iyo waxa tahdiidaya iyo cidda u gacan haatinaysa iyo waxyaabaha uu ka baqayo waxyaabaha uu ku faraxsan yahay fakradda qaldan ee laga dhaadhiciyay social media cidda bullying iyo cyber bullying ku haysa haddaadan waxyaabahaasoo idin aadan fahansanayn hooye ka soo joog iyo ku duceynaa iyo in kaar hele meeqa saaca socotaa iyo ma shaqaynayso waxaa lagu fahmi karaa ma garanaysaa dadka qof canugan kaa kaxaysta ma garanaysaa maaragtay dhibaatada u gacan haatiso adiga kaa jiidatay cid rabta geeri ma jirto
wiilasha markay ka qayb galayaan wiil saaxiibkooda la gowracay iyaga ugu oohin badan mid ka mid a ilmaha dhintay oo aan ka qayb galnay aaskiisii waxaa laga kicin waayey qabriyadii waxa weeye saaxiibadii oo ilaa mar walba tegaya iyagoo ooynaya tegaya marka dhibaatadaas maxaa la yidhaahdaa oo soo jiidanaysa waxaa factorka ugu horreeya ay tahay ilmahaaga ma la socotaa primary level waxbarashada waa projective factor ma jecel yahay waxbarashada waxyaabaha soo jiidan kara ilmaha waxaa ka mid ah in uu raadinayo gangska inuu ka raadinayo protection wuxuu leeyahay way ilaalinayaan wiil haddii ilmaha midi la tusa mid kale hadduu yidhahdo war kooxda haddaad ku biirto waa lagu ilaalinaya iyagoo yar bay protection ka raadinayaan mararka qaar waxaa suurtagal ah oo ilmaha ay sheegaan waxa weeyaan acceptance anigu waalidkii ima aqbalin guriga layma fahmin laymana arag laakiin dadka kale way aqbalayaan marka wuxuu isku dayayaa inuu fidgareeyo qaarkood waxaa suurtagal ah markaa weydiiso wuxuu ku leeyahay anaga gurigeenna waxaan ku aragnay faqri iyo saboolnimaan waalidkii ka arkay markaasa waxaan idhi seed ku aragtay faqri iyo saboolnimo markaasuu yidhi hooyaday dhaaranaysaan arkay oo dhahaysa wallaahi lacag aan kuu soo dira ma hayo shilin ma hayo ilmaha iga qadaya taleefona dibadda looga soo diray wax noo soo dhiibaale marka hooyaday waxaan arku yidhi wallahanan waxba kuu soo diri karin ilmaha iga qadaya lacagtii ma soo dhicin meel kuma marka wuxuu yidhi aniga backgroundkan waxaan ka maqlayay hooyo dhahayso waan qadaynaa waxba ma hayno oo mar xataa nagu canaanatay yaa qaba ku yidhi taleefonka ani mar raba u dhaha hooyada inay taleefonka ka qabsato aniga ma doonayo inay hooyaday been macnihii ay tiraahdo kuma kaalmayn karo wiilkan ma yaqaano xaaladda lagu soo qaxay ma yaqaano inta dad ee maaragtay soo wactamaysa dibadda inay lacagtaa la moodo ma yaqaano taaktikada iyo farsamada waalidka dadka isaga yuraynayo waxaasoo idil ma fahmayo wuxuu gartay in ay jirto saboolnimo ba'an oo hooyada wallaahi iyo billaahida ka keenayso markaasuu leeyahay aniga ma weydiisan karo waxaan rabo waxaa la ii sheegay haddaan alaabtan ka qaado meel hebel oon geeyo meel hebel inaan $100 helayo £100 helayo oo aan marka idhaahdo hooyo dhar uma baahni oon aniga isku filnaado marka wuxuu yidhi aniga patience melihi aan waxbarashadii ku dhammaysto meelay maalin walba hooyada iyo aabbahay ay dhaaranayaan iyo ay leeyihiin maxaa telefonka u qabatay yani faqrigaas iyo saboolnimadaas waxay ka mid tahay waxyaaba ay aad iyo aad maaragtay ay u doonayaan inay ku biiraan waxaa ka mid a peer pressure oo la tusayo arrintii hadda way ka soo gudubtay offline waa social mediadii waa saaxiibadada Instagram kugu jiray waa saaxiibadii kugu jiray mataqaanaa maaragtay Snapchatkii waxyaabaha trendiga ah ee fashionable-ka ee shaqaynaya soconaya waxay ka imanayaan nolol kale ilmaha marka ma laga xirsi xiray xaaladahaas cusub iyo waxyaabahaas ay u hanqaltaagi karaan ilmaha ma laga xirsi xiray oo waalidkii ma fahansan yahay waqti hore ma garan karaa meelaha ay maaragtay laga soo jiidanayo miyuu fahmi karaa mararka qaar waxay ilmaha dareemaan waa nin mar horena aan sheegay inay jirto lack of emotional support ile waalidkeen kalama kulmin macnihii inay emotionally na engage garaynayaan waxaan ku fiicanahay ma yaqaanaan kartidayda ma garanayaan laakiin saaxiibkay wuxuu yaqaanaa kartidayda qoladan gaangiga waxay sheegi karaan raganimadayda iyo kartidayda iyo aftahnimadayda isaan wax isaga celin karo marka awood iyo karti aysan waalidku garanin ayaa qolo kale waxay leeyihiin aad baad u caqli badan tahay kan baa tahay imagine waxaad markaas samaysay marka taas waxay ka mid tahay waxyaabaha kale ee soo jiidan kara ayay ka mid tahay waxaan la soconnaa identity crisis inay tahay dhibaato aad u weyn oo ilmaha haysato hawiyadooda iyo waxa ay yihiin iyo aqoonsigooda waxa ka haysta mushkiladana maaha kuwa gaangiga gelaya keliya aniga waxaan la kulmay dhalinyaro fara badan oo gaangi aan gelin oo wax bartay oo aad aqoonti meel sare ka gaaray oo arrin rasmi ah ka hadlay inaan walaac ku darama doonayo oo hal qayb bay ahaa arrinta laakiin marka identity crisis la muujinayo waxay tahay jiilkan ugu horreeyey markay noloshan galaan waxyaabahay akrinayaan waxyaabahay baranayaan in nolosha ay galayaan waxay la kulmayaan dad challenge garaynayo asal ahaan waxay aaminsan yihiin in meeshay ka soo jeedaan su'aalo aad u weyn Soomaaliya su'aalo adag maysan oolin dadku 100% muslimiin ay ahaayeen dadku way dhaxleen iimaankoodii qof soo muslimaan anaga waardiye aan ka haynay ma jirto diinta waa lagu dhalanayay qofna isma weydiinin qawaacidda loojiga ah ee mantiqa ah ee uu ku muslim cid la weydiiyey male
isagoo muslim u is arkay ilmaha markay waddan multicultural oo muslimiintu ay 5% ka yihiin oo wadamada adduunka ugu aqoonta sareeya ah markuu waxbarashada ku dadaalo su'aalo adag ayaa la weydiinaya philosophical ah su'aalo adag waxa la weydiinaya social science ku salaysan oo taariikh ah oo bini'aadamka intuu ka soo jeedaa iyo koonkan iyo maxay tahay ilmo badan oo masaajidadii iyo dugsiyadii ay su'aalaha ka qancin waayeen ayaa su'aashooda waxay ku soo koobeen I doubted my faith ku soo koobeen inay dhahaan waaba ka shakiyay iimaankaygii waalidkiina lama wadaagayo qaarkood soomaalinimadayba kala laboonayaan sababtaa looma sheegin duruufahan ku soo qaxnay looma sheegin xaaladii jirtay looma sheegin marka iyagaas identity crisis wuxuu la tagayaa inay yidhahdaan rootskaygii iyo meeshaan ka soo jeediyo idil waanba tuurayaaba marka maaha keliya qof gaangiga gala ilmahan marka gaangiga markay galayaan mid ka mid a identitya loo sheegaya oo ah isku koox baynu nahay walaalaynu nahay annagaad naga tirsan tahay waan kuu dhimanaynaa waan ku soo wacaynaa markay xabsiga ka soo baxayaan baabuurro limuusina loo keenaya qaarkood gabdho waa hore eriyey alla leeyahay maanta soo dhaweey wiilka maalintii la soo bixinaya waa oo loo soo sasabaya marka nimankan gaanga elderska ee nimanka gaangiga waaweyn haystee sare ilmahan ku adeeganaya waan usoo degi doonaa waxay u sameeyaan identity iyo waxay u sameeyaan waxay u dhintaan iyo waxay u noolaadaan taasoo keenaysa markay xabsiga wada galaan ama isku dilaan xabsiyada qaarkood hadda waxaa ka bilowda markay laba koox oo isdilaysa laga baqo in la yidhaahdo qof saddexaad oo aan labada koox ka mid ahayn ayaan lacag culus siinaynaa inuu qof noo dilo waa third party oo la leeyahay annaga ayaa ku siinaynaa lacag kaama shakinaya ugu tag jiimka ee soo degi heerkaasay maraysaa micnihii isdagaalidda ilmaha isdagaalayaan wax identity u samaynaya xabsiyada gudahooda isku dilayaan marka heerka markay arrinta gaarsiintahay marka wuxuu siinayaa identity crisis waxaan ka wadaa wuxuu siinayaa meaningful identity aqoonsi wanaagsanay gaangiga siinaysaa waalidkii ilmaha la soo qaxay ee traditionally iyo asal ahaan yaqaanay ilmaha waa la dhalaa ee sida loo korsado lama barto maana ay baraysaa hooyanimo iyo aabanimo aha xaaladda way soo dhaaftay dadka dalkan ku nool ee ku dhashay fac ka fac ayaa barto challengeska iyo dhibaatooyinka ilmaha uga imanayo qaabka loo korinayo marka waxaa kaloo ka mid ah financial gainkan sheegayay oo qaybta faqriga ahayd lacago fara badan oo badan ay dareemayaan inay si fudud ku helayaan markaa weydiiso maxaa xabsiga kusoo geliyey waxay ku leeyihin paper chase bahashaasaan daba taagnaa lacagtaasaan daba taagnaa ayaa xabsigay soo gelisay laakiin waxay mar walba ku soo noqonaysaa weli ma arag waa yar tahay ilmo waxbarashada 100% ku wanaagsan oo waalidkii uu garab taagan yahay in uu waxbarashadiina tuuro waalidkiina tuuro oo uu gaangiga iska raaco way adkaanaysaa marar badan waxaa suurtagal ah in ay ilmihii waxbarashada ay ama ku hooseeyaan ama ay xaafaday degan yihiin ay aad ugu badan yihiin dhalinyarada dhibaatooyinkaas u dhacaya marka structureka ay gaangiga leeyahay maxay tahay marka laga hadlayo bal gaang iyo qaabka loo wadanayo maxay ka mid tahay maxay tahay gaangiga wuxuu ka bilaabanayaa maalmahan ilmo 10 sano ka yar ayaa waxaa loo dhiibanayaa teen years loo yaqaano 9 sano u jira 9 jir lagama shakinayo cid boorsadiisa istaajinaysa male oo weydiinayso waxaa leeyahay bal ilmaha markuu meesha ka soo baxo alaabtan ha loo dhiiban meel hebel ha noo geeyo waalidkii ilmihii iskuulkiisa marka laga soo daayo relaxed ee boundaries aysan ilmaha ku korin oo aysan ilmuhu xuduud aysan lahayn iyo la xisaabtan ee aysan structure iyo qaab hanaansan aysan ku kobcaynin waxaa laga faa'iidaysanayaa ilmahaas qaybta teenageska la yidhaahda aadaa loo isticmaalaa inaan walbahaar idinku abuuro ma rabo waxaa kaloo jirto qolo la yidhaahda hadda runners ama shotters waxaa la yidhaahdaa meeluu isna ka qaadaya meeluu geynaya laakiin waa 11 12 ilaa 15 sano ka yar yihiin dad alaabo waaweyn iyo howlo waaweyn ku aaminayo ma jirto kuwa youngsterska la leeyahay waa 18 jir kuwa gaarsiisan ilaa kuwa ka sarreeya kuwa waa kuwa controla suuqa daroogada inta badan ilmaha gaangiga galaya ee sida rasmiga crime u galaya howlaha ugu ballaaran ay sameeyaan waa iibinta daroogada howlaha ugu badan ay sameeyaan waa iibinta daroogada suuqa daroogadana aad iyo aad u xoogan yahay meelaha lagu leecanayo ama lagu dhibaatoonayo inta badan
adduunku waxaa ugu sarreeya magaalo la isku gowraco marka la fiiriyo hadda Chicago waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn 500 oo qof lagu gowracay sanadkii la soo dhaafay oo gang bas ah kitaabada ugu badan ee gangiga ayaa laga qoraa magaaladaas London waxay sanadkan ka qaaday New York maadaama 29 qof lagu dilay Janaayo ilaa Mars London waxay ka qaaday magaalada New York 8 milyan iyo bar baa ku nool London 8 milyan iyo bar baa ku nool London waxay ka qaaday warbixintii ugu dambeysay hadda magaalada New York hadday say hadda ku socoto ay ku socoto waxa la sheegayaa 50% ayay dhimashada sare u kici doontaa waxa la leeyahay ilaa 120 laana maalin kasto saddexaad celcelis hal qof ayaa midi lagu dilaa magaalada London haddaan last year ahayn qolada koobka qaaday haddaanan shaqo ballaaran aysan jaaliyadu qabanin haddaysan shaqo ballaaran qabanin sanadkan soo socda anaga qaadi doono ilaahay ha noo gargaaro laakiin warbixinta taalo 29 naf weysay 29 naf weysay Soomaalida ku jirta ee sanadkan dhimatay waa 4 qof waa garan kartaan 3 bilood bas sanadka ka tagtay marka haddaan dadaalkaas aad u ballaaran la sameeynin oo aanan gangiga ee qaabka loogu biiro aniga kuwa hadda gangiga ku jiro maxaa laga sameeyaa xoogga ma saarayo waxaan xoogga saaraya kuwa aan gelin sidee looga xirsan karaa hadda waxaa la isaga baahan yahay qolooyina afwaajan ugu soo biiraya dufcooyinkan soo socda see loo hor istaagaa taas ayaa lagama maarmaan ah marka waxaa jiro oo la socotan gangiska inay ku soo biireen haween gabdho isku diraya dadkii gabdho oo sadgaraynaya in la isdagaalo arrintii samaynaya waxaa la socotaan Snapchat dagaal kaliya ka bilowday inay gabdho isku midiyeynayaan awal waxay ahaan jirtay festival waa ku dilay dhiigan ka keenay arrintu waa soo midida waxay noqotay shayga ugu yar Soomaaliya waxaa la lahaa xabada ugu weyn hadda London waxay ka noqotay midiya ugu weyn dagaal waa soo dhamaaday dhibaatada noocaas ah iyo culture-ka noocaas ah booliiskii uu og yahay mayorka London uu ka qayliyay wadanka dhan waa lala socdaa laakiin halka qolo ee meesha lagaga tashanaya dhibaatada aan joogin ummadda ugu badan ee la'anaysan ay iyaga yihiin go'aanada heerka dawladeed iyo policies iyo siyaasadka la qaadanayo qolada laga warramo ee aan iyadu iska warramin waa annaga qolada mar walba cid walba ay shaqo ka yeelato ee ayagii aan shaqo iska yeelanin waa annaga waaqaca contextually explainable waaqaca wuu qeexi karaa maqnaanshaha xaaladahaas wuu qeexi karaa si macnagal ah laana waan cusubnahay laakiin ma justify garayn karo waxaana looga baahan yahay xaaladda ay jaaliyadda ku jirto inaan wake up samayno oo aad iyo aad inaan isu baraarujinno oon hurdada dheer ku jirno inaan ka baxno waan u baahannahay si aad iyo aad u ballaaran ugu baahannahay dad waaweyn oo 30 sano ka weyn ayaa u soo shaqo tagay oo cid qabatana aysan jirin booliiskana ma arkaan ilmaha dariiqa taagan ee waxa yar laga iibinayana waa ilmaheennii ilmaha dariiqa taagan ee arrimaha yar laga samaynayana waa ilmaheennii جزاكم الله خير قبل waxaan rabaa inaad si fiican baasho dhageysataan wada aamustaan oo si fiican ciyaarka u aamusaan wax walba insha Allah muhaadaraadka dhageysta marka xoog deganaan muujiyo barakallahu fiik waxaa la socotaan oo arrimaha kale lagu ogaan karo ay ka mid tahay ilmaha magaca adigu la baxday magaalada loogama yaqaano gangiga magaca adigu u taqaano war ma cabdi hebela maya street name ay leeyihiin adigii oo jooga lagu leeyahay hebla hooyadiisa soo socota mana taqaan ama hebla aabaheediya soo socota hebla ma taqaan maaragtay hebel hooyadiisa ama hebel aabiisa soo socda waxa loo bixinayaa gangiga street name u baxsanayaan oo lagu yaqaano oo ilmaha maaragtay ay qaataan haddii aan doonayno saan ku fahanno bal ilmihii loo gacan haatiyey marar badan oo horena waan sheegnay waxa ugu horeeya waxay tahay qoyskayba isaga dhex baxayaanba wax walba kaa qarsanaya ilmihii kuu warrami jiray oo maanta noloshiisa kaaga warrami jiray maba ahaba waxaa suurtagal ah haddaad social mediadiisa access u haysatay wuu kaa xiranaya waxaa arkaysaa ilmihii oo dagaal fara badan ku gelinayo dhaawacyo aadan ku ogeyn oo wax cid sharxi karta aysan lahayn wataa war maxay tahay mididan
ma lagu midiyey maya waan kufay markaasaa birsaa u taagana ku soo aaday kelidayda waa gartay maxaasaan kuu sameeyey maya dhala idsartay iyagoo dhibaataysan oo dhaawacan ay kaa qarinayaan waxaad ku garanaysaa inuu gurigii habeen ka soo daahayo inuu relaxed ka yahay waqtigaa u samaysay oo mar walba ku leeyahay 3 saacan kusoo dirtaan saaxiibadayba saasay sameeyaan maxaad iga rabtaa waxaad arkaysaa in sharciyadii guriga u yaallo weligiis uu yeeli jiro usan kaa yeelaynin ilmihii horeba maaha naxariistii iyo kalgacaylkii iyo ilmihii ku dhagaysan jirayba maaha saaxiibo badan oo aadan weligaa arag ayuu sitaa sida uu u isticmaalayo social mediada iyo sida uu u isticmaalayo mobilekiisa waa waali qaabka u soo jaranayo lacag aadan adiga siinin iyo cunto aadan adiga siinin ayaa dareemaysaa behaviorkii iskuulka waxaa arkaysaa canugaagii oo lagu yidhi predicted rateskiisa way sarreeyeen maada hebel ninka ugu sarreeya waa lagu yidhi oo waxbarashadii hal mar hoos u dhacday waxaad arkaysaa interestgii waxbarashadii iyo hamigii dhammaan ma doonayo meeluhuu tegayay saaxiibadiis wax walba ma yeelayo lack of respect macallimiintu waxay leeyihiin ilmahaaga ilmihii noogu qiimaha badnaa oo ahaa nama ixtiraamo maanta marna maaragta ixtiraam kuma haysano waxaad mar labaad daraadan u iibinin iyo waxyaabo kaluu sitaa saacadaha qaarkood waxaa arkaysaa baabuur qurux badan oo keenayo ama qolo kaloo inay u timaada qaadayso dad badan isagoo la xiriirayo waxaad dareemaysaa isagoo yimid oo gurigiisa ku jira haddana saacado damba baxayo waxyaabahaas idin waxay ka mid yihiin waxyaabaha oo maaragtay iskuulkii iyo gurigiiba bedelaya haddii lala shaqaynayo ama ay dad la shaqaynayaan dhammaan wuu diidaya ilmaheenna hadda waxay yihiin ilmaha ugu badan youth offending team ama youth connections ama qolooyinka mental health every support iyo every kaalmo oo la siin lahaa way diidaya haddaad tirahdo waan ka shakiya caafimaadkaada mental health aad u maalmaha ilmaha ugu badan yahay caafimaadkaada hooy waan ka shakiyey dhibaatooyin hurdal-aana ku hayso cabsi baa jirto depression aa jiri karo qaar badan oo jaamacadihii ka soo baxo guryihii ka bixila aa jiro depressionka ku batay markaad tidhahdo waa lagu kaalmaynayaa ma ogola imtixaanada markay gelayaan depression badan stresska markuu ka batay yuu walbahaar ku imanayaa dhammaan statutory servicekii oo idin adeegii dowladda ay siin lahaayeen dadka ugu badan ee diida dhallinyaradeenna waa ma ogola hadday tahay mentoring iskuolka laga siin lahaa oo learning mentorka siin lahaa hadday tahay adeegyadii oo kaloo idin waxaad dareemaysaa inuusan marna diyaar u ahayn dhaqanka noocaas ah wuu ku soo badanayaa ilmihii dhagan nuglaa macnihii marnaba ma aha waxaa ka dareemaysaa reckless attitude oo hadduu saa ku dhahay maa midi xabad ka gelisid hadduu saa ku yidhi maa saa ku samaysid waxaad dareemaysaa taxadar la'aan iyo kala daadsanaan iyo riski uu iska qaadanayo oo wax ujeediya macno ay leedahay aysan marna jirin waxaa suurtagala alaabo loo soo dhibin uu guriga keenayo waxaa arkaysaa in haddaad baarto ood si constantly aad uga shakisood baarto waadba ku arkaysaa iyagoo midiyasito tattoo inuu isku sameeyaa suurtagala qaabuu timaha u jiranayo qolooyinka gaangiga waxaa soo noolaatay hadda inay isku dilayaan waxa la yidhahda postcode waxay isku dilayaan inay aaggaas qolada ka timid iyo aaggan dagaal baa ka dhexeeya mararka qaar iyagoo xitaa gang ku jirnaa leeyahay southwall boys inaad tihiin mase acton boys inaad tihiin mase northwall boys qaabaaba la isku dilayaaba mararka qaar waxaa suurtagala tensionaa kacaya adoon ka warqabin oo leeyahay wiilasha halkaa iyo wiilasha halkaa dagaalaa ka dhexeeya weligaa ilmaha yaryar way kuu sheegi karaan daa tiraa maxaa jiro ilmaha yaryarka 11 jir 12 jir snapchatka ku wada jiraan way ogyihiin sida la isku haysto dadka isdilaya iyo meelaha hot sportska la isku ballansaday ilmaha hadda aaday ula socdaan marka waxyaabahaasoo idin waxaad ka arkaysaa maaragtay marka maxaa laga rabaa oo waalidka laga doonayaa inuu sameeyo waalidka san marar badan oo hore meelo badan oo kala duwan ugu soo celiyey 100% waxaana looga baahan yahay inaan isu diyaarino taxadiyaadka iyo dhibaatada ay dhallinyaradeenna la kulmayaan inaan ka dhagaysano dadka expertka ku ah qofkii maanta fiiriyo safer london ama gang exit strategy oo safer london samaysay warbixintiyo idin oo qaabka ilmaha looga saara gaangiga qaabka loo support garayn karo boqolaal kitaabaa laga qoray boqolaal hay-adaa ka shaqaynayo adiga ha ka dhagaysanin qof kale qiila waqaaladiisa ha ka dhagaysanin maalintay ilmahaaga dareemaan
you know what you are talking ay ku dhahayaan markaad ilmahaaga dareemaan waxaad ka hadlayso waalid ahaan inay wax run ay yihiin way kaa dambaynayaan annaga waxaan rabnaa gar iyo gardarraba in la ixtiraamo ilmahan waxaa lagu anqariyey fahmeen ixtiraamka waa inuu waalidku kaa mutaysto dalkan ilmaha markay ku barbaarayaan waxaa la baray waalidkaa waa inuu ixtiraamka shaqaysto markaasaa leedahay hooyadaa ma jecesha markaasuna igama shaqaysanin igamaysan mutaysanin respectiga wuxuu ku leeyahay si free laguma bixiyo hooyaday marna igama mutaysanin ama aabbahay igama mutaysanin inaan ixtiraamo marka inaan kuu gartano wuxuu ku leeyahay waa corruption waa inaan kuu garto waxaadan ahayn wuxuu yidhi aakharaba ilaahay dadka janno iskama geeyo ula xisaabtama waalidki waxay rabaa ha ila xisaabtamin anaa ku dhalay gar iyo gardarro ma fiicniyo ma fiicnid ee ilmihii la taagan yihiin waxay ilmaha dalkan barteen waxa la yidhahda emotional literacy ummi kama aha cawaatiftooda ummi ma aha way akhrinayaan markaas waxay kuu sheegayaan waxa in laga cabsado ay mudan tahay waxa in lagu farxamo ay mudan tahay waxa in loo dabaaldego ay mudan tahay been kaama rabaan annaga inta ilmaha ula soo qaxnay nolosha meeshan looga nool yahay emotionska ilmaha marka la geeyo 2 jir waxaa la geynayaa maaragtay ilmaha yar ee maaragtay meel lagu hayo oo xanaanaha la geynaya markaas dad aanan ku emotions ahayn dad psychologiga carruurta yaqaano ayaa koolkoolinaya adigu waa inaad tartan la gashaa dadka kale ilmaha barbaarinayo ha kula gelin waxay u sheegayaan keliya waa inaad kala gashaa inaysan emotionally kaa dabacsanayn inaysan emotionally marka ilmaha markay toos kula hadla waxay ku leeyihiin hold on maxaa raf u nahay annaga maxaan kan u nahay ani ilmaha waxay ugu yidhaahdeen markaan dugsiga qur-aanka tago health and safety ma laha nalalka qaarkood way dusan yihiin tissue maba lahaba oh my god meeshii nabiga laygu baray calayhi salaatu wasalaam waaye qur-aanka ilaahay waa laakiin waa soo uraysaa can you imagine ilmahaas waxaa loo sheegay noo sheeg waxaad dareemaysid waa inaad noqoto halidi waxa tell us your take waxa arkaysid noo sheeg of course meelay dawlad ku bixinayso 10 kun oo dhaqaale fara badan lagu bixinayo oo mataqaanaa budget dawladda waddan horumaray ah jaaliyad oo garab rarata ah adeega noocaas ma bixin karto laakiin annaga inaan u sheegno oo nidhaahno ilmihii waxay ku barbaarayaan rationalization in wixii mandiq iyo caqli lagu geliyo markuu korayo waxaa leedahay waxaad dareemaysa ha ii sheegin laakiin waxaan kuu sheegay way fiican tahay saasay ku korayaan qaabka noocaasa ilmaha ku barbaarayaan waa duruufo jiro waa xaalad jirto waa dhibaato jirto marka saaxiibaha ma naqaanaa ay ilmaha leeyihiin ma taqaanaa dadkay yihiin ma taqaanaa qoysaskooda ma taqaanaa meeshay ku nool yihiin ma taqaanaa waxay ka walacsan yihiin ma taqaanaa waxbarashadooda heerka ay tahay ma taqaanaa noloshooda iyo dharkooda iyo adeegooda iyo waxa ay ku nool yihiin ma fahansan tahay ma la kulmi kartaa qoysaskaas ma la kulmi kartaa waalidkood ma la kulmi kartaa ilmaha ma yihiin ilmo ixtiraam badan socializationka ma garanaysaa ilmahada meeshay ku hang out gareeyaan meeshay tagaan ma taqaanaa goobtay joogaan ma taqaanaa is it meel hotspot oo chicken shop banaankiisa ma park la yaqaano booliiska ka sheekeeyay meesha ugu daran inay tahay ma garanaysaa social mediaday ku jiraan dadkay saaxiibo kula yihiin waalid dad badan oo ajnabiyan waaystaaniga waxay dhaheen ilmaheenna ilaa 16 sano ka gaaraan annagaa kula jirna social mediadooda uma ogolaana marka hore Facebook Twitter iyo wax walba haddaan u ogolaanana waa ku wada jirnaa passwordkan la haystaa qaarkood waxay yidhahdeen telefon hal shaqo qabto inuu soo dhaco in laga dirsadaan siiyaa bas oo pay as you go waalidkeen maadaama dhibki ku batay ilmo 5 ilmo 6 allaha noo daysta ilmo 7 homeworkii Soomaaliyan weli wadana duruufahan inta badan maaragtay lama tacaalin waxaa suurtagal ah inay iPhone 8 isaga aamusisaba oo tiraada haya hadda meeqa adiga aamusnaanaysa oo tiraada waliba indefinitely adiga iskala ilmaan maalin weydiiya soo ku hurdaya iskuulka waxaan iri oo mentor mu sameynay maxaad u hurdaysaa markaasuu yiri xalay 1 o'clock aan ku gaaray Facebook iyo social media markaasaan dhahay oo mobile kaaga ma pay as you go markaasuu yiri waa pay as you go laakiin gurigeena wifi-ga lagama damiyo waddankan marka ilmaha tarbiyadooda la fiirinayo guryaha qaarkood homework lama ogolo 8 kadib inuu shidnaado
wifi inuu shidnaado ilmo qolkoodii markay galeen duufeedka hoostiisa lagu buli garaynayo oo lasoo tusaya dad la midiyeeyey oo la tusaya lacaga lasoo helay oo habeenkii oo dhan soo jeedo oo markuu iskuulkii tagay wax ugu horreeya arkaya maxay tahay isagiya wuxuu qabaa waxa la yidhaahdo sleep deprivation maba concentrate garayn karo intuu ila joogo madaxa ruuxaya marka waalidka waxaa laga doonayaa 60% isagaa laga doonayaa badbaadintii ubadkiisa jaaliyadda adeegeedina weli waa dhiman yahay inuu ilmaha u jawaabo xaaladaas markaan ku jirno waa la qeexi karaa qayb sababta ay baylahnimada u timid marka social media ma naqaanaa social mediadoodii ma naqaanaa hadday social mediada galeen magacyo gaaray ku samaystaan mobile habitkooda ma taqaanaa yay wacaan yaysan wicin yay la hadlaan ma garan karnaa inta telefoon ay haystaan ma garan karnaa nambaradooda yaa follow gareeya yaan follow garaynin ma garan karnaa waxay post gareeyaan hadda waa la socotaan ilmaha iyagoo 16 jira waxay post gareeyaan shaqada looga joojin karaa qaar badanaa la soo ogaaday iyagoo yaryar arrimo racism ay waa hore ku hadleen in hadda shaqooyinkii loogu diiday marka waxaa upgrade uu ku dhacay fitanta iyo waxyaabaha ilmaha laga celinayo mar walba waxay yeelanaysaa manifestation iyo madaahir cusub madaahirta cusub iyo dhibaatooyinkaas cusub waxaana laga rabaa inaan fahmi karno marka waalidnimada inta waxay u baahan tahay upgrade cusub maanta oo dhan meeqa kitaabaad ka akhrisatay meeqa arrinaad ka akhrisatay meeqa media ka akhristay aniga social mediaooyinka inta badan waan galaa gaar ahaan kuwa waalidka soomaalida waan galaa laakiin iyagaa wacdi isugu dira iyagaa muxaadaraad isugu diro iyagay inta badan ku socotaa muxaadaraad iyagay u baahan yihiin laakiin marar badan waxaa maqan waxyaabo ay ilmaha u baahan yihiin oo inuu waalidkii isaga u maqlay karo marar badanna waxaa loo baahan yahay inaanan xanuunka iyo dhibaatada keliya laysku sheegin ee fursadaha laysku sheego waxaa kaleeto oo maaragtay loo baahan yahay ma garan kartaa why ilmaha ay ugu obsessed ugu yihiin gang culture ilaan waxaadan jeclayn ma gelaysid waxaadan jeclayn kuma biiraysid iskool uguma haraysid waxaadan jeclayn uma dhimanaysid maxaa keenay ilmaha inay u dhintaan waxyaabahan ay gelayaan intay ka timid obsession halkuu ka yimid obsessionka macnii kumamanaanshaha ay ku maman yihiin halkay ka timid taas waa in jawaab loo helaa oo culturekaas uu waalidka mar walba fiiriyo waxaa maalmahan soo korodhay arrimo fraud ah oo ah in la yidhaahdo account-kaaga mana siin kartaa maxaa dhacay lacag yaraa helaysa lacag kugu soo dhacaysa noo soo bixi adigana waad helaysaa maaragtay deedsina la yidhaahdaa account-o la xoqonaya ayaa jiro waana qaybta hadda aad u soo kordhayso oo ilmo badan ay daroogadii ka soko gurigu joogaa account-na la jabsanaya marka la jabsadana lacaga badanaa lasoo marinaya arrintaasna aad iyo aad ayay u badatay oo ilmaha mataqaanaa maaragtay ay ku dhacayaan marka waxaa loo baahan yahay oo macnaha waalidka looga baahan yahay inuu fahmi karo bangiyada ilmaha u furtay of course bangiga marka la furo waxaan ka wadaa waa 16 iyo wixii ka weyn inaad mar walba la socon karto contextual safeguardingkii aan sheegaynay ee ahaa yaa ilmahaagii ku maqan yaa dhibaato u geysan karo xaafadda yaa mataqaanaa maaragtay ku jira yaa daroogada qaybiya yaa maaragtay maxay tahay masaa'ibtan teeda kale ilmaha jaamacadaha aadaya keliya ma aha badbaadada inay tahay hadday waxbarashada ku guulaysteen inay socdeen keliya maaha waa in lagu beeraa adigu waxaad leedahay mission statement waalid meeshan fadhiya ma jiro oo u yimid inay ilmihiisa ismacsalaameeyaan waxaan u nimid plus inaan waxay aan ka soo qaxnayna dhibaatadii dagaalkii sokeeyana ay naga harto ilmaheenniyoo wax bartay oo muslimiina oo soomaali ah oo dhaqan suuban leh oo durriyad saalix ah aan helno shaqo intee la eg ayaynu haynaa inaan ilmaha noocaas ah soo saarno sababtaa ilmahan le-anaya ee xabsiga gelaya dadkeennan waaweyn keliya ma qaban karno waxaa qaban karo ilmo lagu abuuray dareen ummadnimo ilmo lagu abuuray dareen bulshanimo ilmo lagu abuuray civic values ilmo lagu abuuray dareenka iyo dhaqanka see halkan loo dagaalamaa eden waxay leedahay 3 MP oo laga soo doortay iyo 69 counselor UK waxay leedahay 20,811
counseloro doorashadii counselka hadda la gelaya ilma aanan dareemaynin in siyaasadii la matalayo soomaalida 20,811kaas soomaalida waa 9 ilin alxamdulillah halan ku leenahay haddaadan ilmihii 16 jirka 17 jirka aadan ku abuurin yaa ku matalo ma Labour rabtaa inaad ka mid noqoto mise Conservative yaa siyaasadka waxbarashada qaadanayo yaa kan amniga ku qaadanayo yaa kii waxbarashada ku qaadanayo yaa austerity iyo noloshii iyo dhaqaalihii la jaray ku jawaabayo wadankan uu joogo yaa xaqiisa u dhicinayo public life kama lagu jira hadduu Soomaalida ka dhax fiiriyo yu public life ka ku arkaya laana xabsigii laandheeru ka yahay intii dhimanaysa asal laandheero ka 12 qof 24 uu ka yahay boqolkiiba inta geeriyootay isagu isweydiinaya wuxuu leeyahay meesha loo badan yahay ka ciidmi laana meelihii waa lagu yaryahay adiga hadaadan dhihin wadad cusub ay jiro 70kii dhalinyaro anaga u sameeyay hal mar waxaan tusnay dhalinyarada dadaalaysay hebel ma taqaana hebel in qoraalkiisii adduunka laga jeclaaday ma la socotaa hebel in loogaga yeeray inuu dawladda la taliyo ma la socotaa markaas hal mar waxay yidhahdeen cid dadkan noo sheegtay iyo kitaabadan la qoray cid noo sheegtay inay Oxford iyo Cambridge ka baxeen dadka noocaana looma sheegin laakiin social media-da waa la qalay waa la dilay waa la gowracay 10 dhimatay baaba'nay jabnay wuu arkaya taas marka waxay samaynaysaa wax la yiraahdo desensitization waxay kabaabiyeynaysaa garashadoodii waxay kaloo ku ridaysaa wax la yiraahdo moral fatigue akhlaaqdii iyo qalbigii ayuu ka daalaya la dilay wuu caadaysanaya marka dambe kama cabsanayo maalin baa nin wuxuu igaga sheegay magaalada Muqdisho wuxuu yiri waxaan arkay 2006 ayaa waxaan arkay yiri ilmo kubad meel ku ciyaarayo marka waxay u yimaadeen oo yiri meel banooniga lagu ciyaarayo tarabuunka ahay meeshii lagu ciyaarayay oo goolka ay ka dhigan lahaayeen mayd yaala oo fresh ilmi way yimaadeen kan dibaddu ka tagay maydkeena qabteen ay jiideen gees iska dhigeen markaasay waxay surteen birahoodii waxaa ku dhacay emotional fatigue la ilaha illa allah itri malahan cid qaracanta meel maalin kasta la soo dhiga it's not news ani news ma aha maalin kasta la soo ilmuhu haday arkaan marka in maalin walba la isdilayo maalin walba la isqalayo waxa ka dhimanaya dareenkaas laakiin waa in loo geliyaa information kan la gelinayo waa inuu noqdaa oo la yiraahdaa waxaa laga rabaa cid adig ka horeysa ma jirto cid adig ka ya u gurmanaya ilmahan inta xabsiga booqasho ku tagto inta iskuuladaas ku yaalo goob walba ka samayso intervention oo ugu horeysa intervention ugu horeeya uu yahay yani ilmaha ina iskuul kasta dad la xiriirto oo aad raad ilmaha permanent exclusion ka la siinayo ana la shaqeynayo anaga ka heedahan lix iskuul hadda la shaqeynaa oo aan niri waxaan rabnaa ilmaha iskuulka laga soo saarayo inaan intaadan ka soo saarin aan la shaqeyno oo aan waxaan ka qaban karna ka qaban dhalinyaro badan oo jaamacada ka soo baxan ugu kaalmeeyay inay iskuuladaas booqdaan oo ilmihii la taliyaan waxaa looga baahan yahay masaajidka waa dahab waa meelay bulshada isugu timid jaaliyadda Soomaaliyeed maanta maalin ay masaajidada uga baahi badan yihiin maalin ay uga baahi badan yihiin jaaliyadda telefishinada u furan male waxaa loo baahan yahay in la qaato dareen ah maxaa practical ah oo laga qaban karaa ma haynaa dad u tababaran ilmaha iskuulka laga saarayo inay advocacy u sameeyaan qof kastoo iskuulka laga saaray study center la geynayaa study center kana dad aad u dhibaataysana isugu tagayo ilmahana jaaniskoodii aad u sii hooseynaya waalidka hadday la cararaan oo private geeyaan dhaqaalahaas dadka hayo way kooban yihiin waxaa loo baahan yahay ma haysanaa advocacy cid u dooda ilmaha iskuulka laga saarayo ma haysanaa ilmaha yaryarka ee primaryga barnaamij oo transitional loo sheego iska jir dhibaatooyinka noocaasa jiro waalidka in loo furo tababaro ah maxaa gaanga la yiraahdaa maxaa child sexual exploitation la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa in lala shaqeeyo hay'adaha dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya in lagu abuuro dareen siyaasadeed oo ah inay tiro koobyo sameeyaan dhibaatooyinka dhacayo oo ay la xisaabtamaan MP-yada maalin dhaweyta meel la isugu yimid aniga aan ka qayb galay MP ka soo qayb galay MP-gaas warbixin aanan wanaagsanayn ayuu meeshii ka sheegay oo aanan usan aqooninba inta Soomaalida ka dhimatay dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacadda ka soo baxay ayaa inuu MP-ga qabteen ay si la yaqaan u gariil gareeyeen oo la xisaabtameen oo yiraahdeen ma adan ku soo dooranay hooggeeni iyo dibkeeni xitaa kama warqabtid adigaana House of the Commons noo fadhiya Soomaha haddii dhalinyarada lagu abuuro wacyi siyaasadeed dalkan waan deganahay
sida looga nool yahaa laga rabaa inaan la imaano jaaliyadaha kaloo idin way ka baxeen duruufihii gooni maqnaashaha annaga waxaana lagu xantaa ghettoization waxaa leeyahay iyagaa is yaqaana iyagaa isla jooga iyagaa iska adeegta iyaga ayuuta ku wada jira ilmihiina keligood way socdeen iyagoon lala soconin qof kaste meeshaan fadhiya ilmihiisa u badbaadeen waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay dareenkaas oo inay jaaliyadii inay u adeegaan inay ku soo celiyaan waxaan ku faraxsanahay 70 dhalinyareen waraystay inay ku jiraan ilmo aad loogu dadaalay oo jaamacado waaweyn u socda oo markaan la sheekaysana qaarkood ay yidhaahdeen kulamada kale ma iman karnaa si dareenkan ay qaateen oo ah in sideen dalkan uga muuqan karnaa oo ilmaheenin ugu gargaari karnaa ula xisaabtami karnaa siyaasiyiinta jiro ula xisaabtami karnaa laana laba faragelina loo baahan yahay faragelin dhanka dawladda ah iyo kicid iyo baraarug dhanka jaaliyadda ah jaaliyaddana waxay ku baraarugi kartaa inay howlgeliso ilmahoodii waxaan ku jirnaa xilli aad u adag oo xitaa karaahiyadii iyo nacaybkii muslimiinta loo qabay aan lala gabanaynin maalin dhaweyto waxaa laga joojiyey twitterka nin la yidhahdo Tommy Robinson oo EDF maaragtay English Defense League twitterka laga saaray maadaama muslimiintu mar walba caynayay beritan waxaa la yidhahdaa Punish Muslim Day qaar badan ilmaha gurigaan joogaynaa ima bixi doonaa la leeyahay xaaladda ingiriisku way isbedeshay dhaqaalihii hoosu u socdaa karaahiyadii nacaybkii saray u soo kacday muslimiintii dhibaatooyin badanaa loo geysanayaa maalin looga baahan yahay inay jaaliyadeenna istaagto oo ay hadasho oo aysan qofka aanan individual lagu korinin keligay aan lagu korinin waa inay dareemaan intee xabsi kaaga jirta intee iskuul laga eriyey intee karaahiye ee socoto islaamofobiyada iyo nacaybka islaamka see looga hortagaa iyo kuwa kale dabayshanaya ee markay waayeen cid macno u samaysay cid su-aalaha ay qabaan kala hadasha markay waayeen yidhi waan ka shakinay iimaankeennii iyo maaragtay complete assimilation aan la imaanayna Soomaaliya ha ugu soo shay qaadin kuwaasna in la soo qabto kuwa hoos u baxayna in la soo qabto shaqada noo taalla aad iyo aad u ballaaran tahay hawsha jaaliyadda u taalla aad u ballaaran tahay berrito xanuunka noocaana ma jiri doono sababtoo ah inta hadda joogto jiil kala soo bixi doona laakiin ma ku simi karnaa ma badbaadin karnaa kuwan jooga si iyagu isu badbaadiyaan kuwa badbaadayna kuwa kale inay gacan qabtaan marka waqtigii laygu talagalay waan ka taraaraxay markastoon hadlayo passionada noqon sabta xanuun iyo dhibaatooyin iyo waxyaabo badan oo jiraan arki karaan aan u jeednaa laakiin rajada aad ay u ballaaran tahay dhalinyaro badan baa soo baxaysa dad badan baa hami ku abuuran yahay laakiin jiilkaas kore ee badbaaday oo wax weyn loo taro waxaana hormuud ka noqon karo halgankaas ballaaran waa masaajidka oo daarasalaam ugu horeysaan sheegayna mar walba hadda themeska iyo mawaadiicda laga hadlayo waa mawaadiic ka tarjamaysa walbahaarka jaaliyadda haysto marka wixii su'aalaha insha Allah ta'ala way weydiin kartaan jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullah